iska cabuulaysto mimbar dambe soo fuulla haddii kale toos baan idin laadlayna idin qoladiina wadaadada ee masaajidda shalay toolo ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada aqlabiyadda ee golaha wakiilada Soomaaliland oo kula warbaahineed ku qabtay xarunta golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxa ugu horeen halkaasi ka hadlay xildhibaan Maxamed Abiib oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland waxaanu xildhibaan Maxamed Abiib ka hadlay xaalka siyaasadeed waqti xaadirka wadanka uu marayo iyo mudaharaadkii maalintii Khamiista ahayd ka dhacay magaalada Hargeysa iyo hadalkii uu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu jeediyay waxaanu sidoo kale xildhibaan Maxamed Abiib dhaliilo kala duwan uu jeediyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo culimada Soomaaliland waxaan sidoo kale Ilaahay uga baryayaa inuu u boogadhayo oo uu caafimaad sariicana siiyo muwaadiniintii ma aragtay dhaawac gardarrada loo geystay oo boqol kor u dhaafay halkan mudanayaashii golaha wakiilada jooga golahana waxaa la yidhahdaa golaha shacabka la yidhahdaa in badan baa halkan kaga hadlay booliska iyo madaxweynaha iyo maad aragtay wasaaradaha iyo midna wakiilkamaha shacabkay wakiilkay dadka voicelesska ah tuulo kasta gobol kasta iyo degmo kastoo joogaan dalka waxaa ka dhacay bannaanbax baa ka dhacay wuxuu ahaa intaana waan xasuusto bannaanbixii ugu weynaa ee jamhuuriyadda ka dhacabo ugu weynaa ayuu ahaa ee ugu saamaynta badnaa waxaa taa ka soo horjeeda inuu ahaa bannaanbixii ugu horreeyey ee xukuumaddii iyo mas-uuliyiintii ummaddan ay dirsatay ay ula dagaalameen sidii cadow dal soo galay loola dagaalamay erayo kaloon ku cabire garan maayo waxaase muhiima in aynu laba qodob dul istaagno kow doorashooyinka iyo bannaanbaxyada waddan ka dhacay ee laysku haystaa ma aynay la mid ahayn kuwii shalay daraad iyo tii ka horraysaba dhex mari jiray maxaa la yidhahdaa dhinacyadii kala duwanaayay ee isku hayay siyaasadda iyo kuraasida dalka maxaa soo kordhay cusub oo cusub wax cusub baa jira dee waa mudaharaadkii dadkii ugu ballaadhnaa la dilay waa mudaharaadkii dadkii ugu badnaa la dhaawacay kursiga laga wada hadlayaa waa kii maalintii maxamed xaaj biraan cigaal u naxariista uu joogay laga wada hadlayay wey ma kursigaa kursigii ka weynaaday waa maya wey waa maya walaalayaal innagu dalkan baan leenahay dal kale meli waxaa la yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi markuu walaalkaa quman yahayna waa inaad quwayso markuu qaldan yahayna waa inaad qabato waaxdii fulinta ee golahan uu jeekan balanska u ahaa wuu xadgudbay wuxuu ku xadgudbay qawaaniintii iyo dastuurkii dadkan ay dhigteen xadkii loogu tala galay inay ku ekaadaan bay dhaafeen habeenkii ugu dambaysay waxaad xasuutaan in bannaanbaxa la fasaxay oo la yidhi xaruntiinna ku qabsada xisbiyada maxaa la yidhahdaa ucud iyo waddani dadka dhintay 100 mitir oo square oo xarunta maxaa la yidhahdaa loo asteeyay ayay ku dhinteen inta ku dhimatay magaalada Hargeysa qof ku dhintay madaxtooyada horteeda iyo golaha wakiilada hortiisa iyo dahabshiil hortiisa midna ma jiro oo laga celinayay meherad ganacsiyo weyn laga celinayo halka lagu dilay ma jiro mid xarun dawladeed laga celinayay halka ma jirto dhammaan dhacdooyinka iyo fiidiyoyada daawateena dad shacab ah oo aad iyo aad u dadnimo badan waxaan arkayay inaan sidii markii la weeraray ciidanku weeraray calankii jamhuuriyaddu kor haya oo dhulka ciidu ka ilaalinaya qof wax tuuraya maana aragno laakiin intaa wax la arkayay ciidan rasaas nolol maraya waxay orta dhacdadii maalintii dhawaada fashilisay bannaanbixii maalintii hore ay ciidamadu dafireen ay yiraahdeen rasaas nolol maalan adeegsan kana buriyay oo been ka dhigay
maxaad u fasaxaysaa haddii dadka la laynayo maxaad u fasaxaysa madaxweynaha uu hadlay habeenkii dhawitoole 8 daqiiqaan daawada anigu waxa ka daro magac bixinta anigu magac aru bixistay 20 daqiiqo oo barorto daahir yaala daawada iyadoo banaan dhacay markuu hadlayay daahir sidoo hadlay markuu banaan buux dhacay sidoo hadlay daahir yaala ka madaxweynihii hore sidoo hadlay waa garanaysaa sidoo hadlay YouTube-ka ku jirta YouTube-ka ayay ku jirtaa annagu saakayna taxsidaa dirnaa halkan iskugu nimidnay waajibka wixii laga qabanaya ee golahayagii qabsanayana golahayagiiba u taallaa haddaanu qabsanayno mudanayaashii lasoo doortaana qabsanayna waa la weydiin doonaa ilaahay baa la xisaabtami doonaa ayaa la xisaabtami doonaa waxaase meel taalla innagu dalkan maalintii la abuuraya meel baa laga keenay waxaa laga keenay meel bilaa nabadgelyaa waxaa laga keenay meel aanu qofna sharaf lahayn waxaa laga keenay meel aan madaxweyne jirin waxaa laga keenay meel aan suldaan jirin waxaa laga keenay meel aan sheekh jirin baa laga keenay meel uu ninka daydagii ugu sarreeyaa laga keenay ee qoriga 8 jirkii dawlad dhis baa la soo maray maanta halkaan taaganay waalkii waxaan rabaa idhiin inaa ku soo jeedisaan halkaynu ku soconnaa meel wanaagsan maaha meel wanaagsan maaha wixii ku xigay waa xalay dadkii la laayay la leeyahay cid laysan lama garanayo mooyaan tibaa bilaabatay soo maha haddaad sheekh tahay iyo haddaad weriye tahay iyo haddaad qof shacbo tahay dhammaantiin waxaa idiin taalla inaanu istaagno inaan waxaa cusubay nagu soo kordha iska qabanno dalkani dal xoog laysku muquuniyo ma noqonayo aad baan se uga xumahay hadday maxamed abiib iyo xildhibaan mustafa iyo barkhad iyo oo raggii cusbaaye dee jabhadaha aan ka qayb gelin iyo raggii siyaad baraan la dagaalna hadduu waxaas ka iman lahaa waxaa la odhan lahaa waa qaar cusub oo baashuu cusubtaa la odhan lahaa raggii dagaalamay xorriyad baan u dagaalanay ummadda habeen iyo maalin ku lahaa markay dadkii iyagii laynayaan maxaad u dagaalantay taariikhdaad ummadda u sheegaysa ma been behed waxaad ka shaqaynaysaa beenin iyo waxaad ummadda u sheegaysa dee madaxweyne waxaad ummadda aad shalay qabatay ee daraad qabateed xalay ku hanjabaysay ayaa madaxweyne ummadda u sheegaya wixii horeed sheegaysay oo burinaya maanta se fursad baad haysataa dib ugaga noqoto fursad baad haysataa rag baa xiniyaha laga saaray tallaabo lagama qaadin ilaan qofku eeg way ku yaraydba dee iminka sa u socoto dee way ku yaraydba dee annagu waxaan islaa kuwiiba yaa dembi lagu xukumi doonaayo maxkamaddaa la geyn doonaa maxkamadda ayaa la geyn doonaa ciidamada annagay naga yimaadeen idinkeydii ka yimaadeen shacabkay ka yimaadeen waa kuwaanu miisaaniyaddooda halkan ka kordhinaynay weeyaal miisaaniyaddaa loo hagaajiyaan lahayn wey laakiin dadku ma wada xumaadaana shakhsiyaad madax xumaatay baa ciidanka xumaysa oo shacabka xumaysa waxaan leenahay ka daaya ninna ma dhaqdo ninna dhisi maysa taasi habdhaqan baynu lahayn dawladda maanta jirtaa habdhaqankaynu lahaan jirnay way ka gudubtay somalilan marka laysku yaacay wax laysku afgaran waayo meel baynu iskula noqon jirnay odayaal baa arrinkii galay madaxweynuhu kalsoonidii wuu diiday labada oday ee midna aqalkaygan odayga ka yahay midna aqalkan odayga ka yahay ayaa arrinkiyaa loo daayleen labadina maalintii dambu madaxweynuhu ka baxay yidhi dee madaxweyne ayaa lagu soo kaxaystaayo yaa idin dhexdhexaadinayo yaa idin kala qabanaya yaad kalsooni siinaysaa oo arrinkaa gelaya yaad kalsooni siinaysaa waxaan ku soo gebagabeynayaa mudanayaasha kala odhan dooneen walaalayaal xaajo waxaa la yidhi madaxa la qabtay leeda mijo la qabto ma leh shacabka reer somalilan yaanay waxba kala qaybsamin waxba yaan la qabiilen waxba yaan la reereen soomaalidu waxaa tidhahdaa walaalkii loo xiiriyow adna soo qoysaa la yidhahdaa adna soo qoyso madaxweyne wuxuu ihi mudanayaashu wax xasaanad leedihiin ma jirto dee xasaanadda afka madaxweynahana kuma imanin afka madaxweynahana kuma tigta dastuur uu ummaddani dhigto shacabkan uu dhigtay baa sameeyey in runta la sheego oo waxa xun lagaa qabtana
inaad tiraahdo xasaanad baa lagu waayaan aanu sharci darran u arka madaxweyne madaxweyne waxaan kugula talinayaa inaad ciidamada booliska inta xumaysay ee magacooga xumaysay shacabka laysay calanka iyo boodhka watay ee laysay inaad soo qabato diriis ka dhigto haddii ciidan cid lagu haysanayo maxamed siyaad barraa ku haysan lahaa haddii ciidan cid lagu haysanayo tigreegyaal ka fadhiya baa ku haysan lahaa haddii ciidan cid lagu haysanayo mucamar alqadaafi baa ku haysan lahaa oo warshad nuclear ragabtay ayaa ku haysan lahaa wallahi inaan weligeed ciidan lagu haysan inaan iskalaafano inaan isku xumaano oo dadkeennu xumaado taariikhdeennu xumaato uunbaa laga dhaxlayaa madaxweyne odaygii noogu weynaa baa tahay maanta ragga odayaasha dalka ugu weyn baa tahay waxaan kuu soo jeedinayaa inaad ficiltanka iyo isku fiirsashada aad iska dhaafto ood xalu doonto dadkan ayaan kusoo jeedinayaa shalay tole culimadii baa masaajidada ka hadashay jimcihii aad baan ula yaabay intii buuqaasi uu dhacayay ee arrinkaas siyaasiguu jiray culimadu kamay hadal ragga soo gurmada ee dalka iyo dadka u soo gurmadana kuma jiraan shalayna qaylay tole waxay idhahdeen waa kibir baa dadka loo waxaynayaa waar haawe kitaabki iyo diintii ummaddaadu hayseenaawe maxaa u arkilaadiin suldada taladii loo dhiibay ku tagrifalaysa xumaynaysa maxaa u arkilaadiin maxaa maalin keli runta u sheegi laadiinoo mimbarka aad 7 cishaba taagantihiin wiigiiba maalin maxaa runta uga sheegi laadiin waan ogahayo sheekhi runta sheegi jirayna weynagii 2 wiig ka hor halkan kusoo hasnay xabaalaha baqiicde allah u naxariisto sheekhaadadii allah u naxariisto iska cambuulaysto mimbar dambe aan soo fuulna haddii kale toos baan idin laadlayna idinka qoladiinaa wadaadada ee masaajidada shalay toole ka hadlayay ee dadka la dulmiye ku tiiqtiiqsanayay ka fadhiistaan leenay kuwaana ummadda madaxweyne wuxuu yidhi dadka reer somaliland daraad way midoobeen ma maalinta dadku isdilaanee ay isku furtaanee la islaayaa midnimada madaxweynuhu ay u muuqatay shalay u muuqan weydey markuu lahaa qoladii aan odayga u hayo qoladii odayga aanu haabaysaysta iyadoo waddankuma nabadiya sawkilaa waa la qaybsan yahay ma maalintii suuqa hargeysa bariis cid karsata la waayey ee biyaha la shuban kari waayey ee dadka qaar la laayey ee boqolaalka la xidhay ayuu madaxweynuhu yidhi 95% bay reer somaliland midaysay haadaa huwa taasaa midnimaa soo maamudana madaxweyne ma taasaa midnima wuxuu yidhi 95% dadka reer somaliland way diideen kuwii soo bannaan baxay ee halkan maraya ma oramay haayeen ma reer somaliland waryahan ma reer somaliland bay haayeen reer somaliland anuu qolada ka hoosaysa la hadli maayo ugu dambaynta waxaan u baaqayaa mudanayaasha labada gole inay golayaasha soo xaadiraan odayaashii way shaqayn waayeen oo bartaasaa laga saaray cid kale oo dhexdhexaad oo ummaddaa kala qabato oo raggii joogso odhan jirayna waa dhammaadeen madaxweynuhuna cid kasta wuxuu ku fiita bixiyey sharci ayaan haystaa buuhi soo maa haatuu burhaanakum golahan hortiisa ha keeno halka sharcigaan kaga doodatay madaxweynuhu uu hayo xeerkiina waa keenaynaa waxaa soo jeedinayaa in la sameeyo oo hadduu madaxweynuhu sharci diyaaru yahay xeerkii golahan in la keeno labada doorashona waa isa saaraynaa ta madaxtooyada iyo tawaradana waa isa saaraynaa win-win situation hadduu madaxweynuhu dooniyadii oo saddexdana madaxtooyada u tartameen qolada kalena ururada usoo tartameen dee si kaloo loo dhaqaajiyo la garan maayo madaxweynuhu wuxuu golaha ku eedeeyey halkan uu ku eedeey yidhi raggii doorashada qaban lahaa baa hor taagantiin madaxweyne annagoo halkan xisbi wadan la idhahdo kelima fadhiya mudanayaal kala duwan baa fadhiya oo qaarkood ururadaa cusub ay taageersan yihin baa fadhiya kuwa la diiday madaxweyne markaad sharciga iyo xeerkaad dhaafto xeerku wuxuu leeyahay qof dhexdhexaad oo baar xisbiyada iyo siyaasadda aan ka qayb qaadan oo bulshada dhexdhexaad uga muuqda kuna sifoobay dhexdhexaad ayaa commission loo magacaabaya iyo guddi ururo cadaalad loo magacaabaya madaxweyne ma waxaad qabtaa inay xalaal tahay inaad kuwii xilka ku hayey kuwii xarunta xisbiga kulmiye fadhiyey ee golaha dhexe ka tirsanaa markaad soo magacowdo haddii lagu idhaahdo madaxweyne soo bedelo inamada reer somaliland ee badan ee hareerahaaga fadhiya ee qaarkood madarasadaha joogaan ee qaarkood cusbitaallada joogaan ee qaarkood ay aqoon-yahanka yihiin ee qaar ka shaqeeyaan maxaa la yidhahdaa saxaafadda iyo institutionada madaxa bannaan leh ayaa dad ka weyday maya
kamaad waayin madaxweyne kuwa la asixiyey iyo kuwaasina farqiga u dhexeeya waxa weeye waa intaasa u dhexaysa inay rag mas-uuliyiin oo